Saddexda geed ama mirood ee ugu muhiimsan caalamka looguna beerashada badan yahay waana kuwa loogu soo saarista badan yahay dunida ahna kuwa loogu isticmaalka badan yahay caalamka. Geedka qasabka ayaa nooc miroodka loogu soo saarista badan yahay dunida guud ahaan. Dhirta la beerto waxaa laga sameeyaa dheecaankiisa 80% sonkorta caalamka laga isticmaalo waa dhir dhaadheer oo ka tirsan bahda cawska. Waxa uu ka baxaa dhulka cimilada diiran leh sida Koonfurta Ameerika, Koonfurta Aasiya iyo Bartamaha Afrika. In ka badan 1.9 bilyan oo tan oo qasab ah ayaa la soo saaraa sanad walba. 40% qasabka caalamka ayaa soo saarta wadanka Brazil oo dhigata in ka badan 750 milyan oo tan. Halka India ay ku jirto kaalinta labaad, Shiinaha ayaa dalka saddexaad ee qasabka ugu badan soo saara. Galleyda ayaa ku jirta kaalinta labaad cuntooyinka loogu beerashada badan yahay uguna caansan dunida. Waxa ay ka sara martay bariiska iyo qamadiga. Galleydu waa dhir ka mid ah bahda cawska. Waxaa laga sameeyaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay saliidda cunnada lagu darsado, agab loo isticmaalo shidaalka iyo boqolaal cuntooyin oo dunida laga isticmaalo. Mareykanka ayaa soo saara galleyda ugu badan dunida. In ka badan 33% galleyda dunida laga isticmaalo ayuu soo saaraa Mareykanku, wuxuuna dhigtaa in ka badan 380 milyan oo tan. Wadanka Shiinaha ayaa kaalinta labaad ku jira, halka India ay kaalinta saddexaad ku jirto. Bariiska oo lagu tilmaamo mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan dunida ayaa booska saddexaad soo galay, waana cunnada ugu caansan qaaradda Aasiya. Waa mid ka mid ah bahda cawska. Waxa uu ka baxaa dhulka cimilo ahaan diiran. Sanad walba waxaa la soo saaraa in ka badan 750 milyan oo tan oo bariis ah. Shiinaha ayaa dalka soo saara bariiska ugu badan dunida. Waxa uu soo saaraa in ka badan 200 milyan oo tan. Kaalinta labaad ayaa waxaa ku jira India. Wadamada Shiinaha, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam ayaa soo saara 72% bariiska dunida laga isticmaalo.